mowduucan waxaan jeclahay inaan uga hadlo arrinta jirta oo hadda marka kan xaaliga ah oo arrinta ka jirta Guraceel iyo Galmudug amase Galgaduud oo dagaalada iyo dhibaatada jirta ayaan rabaa inaan ka hadlo aniga oo jecel inaan uga hadlo si dhab ah oo aan ahayn caadifad iyo dan jeclaysi ee waxa xaqiiqada iyo waaqicu ay tahay in aan sheega jecel ka bacdina markaan waaqaca ka hadlo waxa ay ila tahay iyo aragtidana aan dib ka soo sheegi doono insha Allah taala horta waxaan rabaa inaan sheego ahlu sunna wal jamaa waxa weeye dadka islaamka ah baa waxay haystaan ahlu sunna wal jamaa dadna waa shiico dadna waa ahlu sunna wal jamaa markaas dadkoo dhan oo islaamka ah intiisa badan inta shiicada maaha inta kale waa ahlu sunna wal jamaa haddii laga soo laabto Soomaaliya dadka iyo shacabka ku nool dhammaantiis boqolkiiba 95 baa la oran karaa waa ahlu sunna wal jamaa mabda la yiraahdo oo diiniga ah ayay ahlu sunna wal jamaa yihiin markaas ayaamahan warbaahinta iyo miidiyaha iyo baraha bulshada waxa qabsaday magacaas ahlu sunna wal jamaa la yiraahdo oo ay sida loo isticmaalayo iyo aragtidiisu iyo waxa uu yahay ay kala duwan yihiin ahlu sunna wal jamaa siyaasad dadku u yahay haddii la khasiso waxa gaar ay ugu sii dhacday gobolada dhexe nimankii 2008 markii gobolada dhexe ay qabsadeen nimanka khawaarijta nimankii culumada ahaa oo ahlu sunna wal jamaa kamid ahaa qayb kamid ahaa oo is abaabulay oo u adkeysan waayay diinta islaamka iyo dalka iyo dadka waxa lagu sameeynayo oo khawaarijtu ku sameeynayso sidaa darteedna halganka u galay oo qalabka u qaatay ilaahayna ku guuleeyay oo ka xoreeyay gobolada dhexe nimankii khawaarijta ah oo dhibka badnaa sidaa darteed haddaanu ka hadalno aniga oo ka mid ah mas'uuliintii ururkaas samaysay ahlu sunna wal jamaa magacooda ku dagaal galay oo qayb dadka weynaha ahlu sunna wal jamaa kamid ahaa 2008 oo aan ahaa anigu ama haddaba aan ahay gudoomiyaha golaha talada ama sharci dejinta ama baarlamaanka aanu ahayn waxa weeye anagu markaasaan hawsha galnay dagaal baan galnay ahlu sunna wal jamaa mabaadi'deeda aaska ah oo ah in la ilaaliyo qawaacida iyo shacaairta iyo mabaadi'da shariicada islaamka la ilaaliyo ayaan lagu hawl galay ahlu sunna sidaas ay ahayd hawsha ku gashay waxa jirtay ka bacdi dagaalkii markaan galay oo muddo dhan aanu joognay ugu dambeyntii waqtigii xilligii uu madaxweynaha ahaa Sheekh Shariif dawlad ahlu sunna waxay heshiis la galeen magaalada Addis Ababa kula galeen dawladii xasanka la yiraahdo Sheekh Shariif in dalka
uusan kala qaybsami karin ahlu sunnana ay dalka iyo dowladda iyo qaranka Soomaalida qayb ka tahay sidii la isku waafajin lahaa dowladda iyo ahlu sunna heshiis baa meeshaas ku dhex maray in ahlu sunno mas'uuliyadda ay la qaybsato ama ku wareejiso dowladda heshiiskaas waxaa noo garwadeenka ahaa oo dhexdhexaadin iyo ka ahaa meesha la isu keenay UN-ka ka ahaa heshiiskii baan tagnay heshiiskaas markii la qoray oo la saxiixayay dhanka ahlu sunna waxaa u saxiixay Allah u naxariisto Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefow baa u saxiixay Umar Cabdirashiid baa joogay labadoodu markii ay saxiixeen ninka la yiraahdo Maxamuud Sheekh Xasan waa uu xanaaqay isagoo oo ka xanaaqay in uu saxiixay heshiiska gudoomiyihii golaha fulinta Maxamed Yuusuf Xeefow waqtigaas markii ay ahayd Maxamuud Sheekh Xasan uu ka baxay maamulkii ahlu sunna oo uu wax ka waday kamid ma ahayn golayaasha saddexdii gole oo fulinta iyo golihii garsoorka iyo golihii talada midna ma uusan ahayn laakiin wuxuu kamid ahaa xibnaha kale oo daraf ka ahaa abaabulka iyo talada wax ku lahaa uu carooday Nairobi buu tagay BBC-du ka hadlay meel walbuu ka hadlay inuu ka baxay in ahlu sunna burburtay asagoo ujeedadu ay tahay dan uu leeyahay haddii dad kale meesha timid oo awoodii lala qaybsaday oo Maxamed Yuusuf Xeefow saxiixaas uu saxiixay inaysan u qalmin halkaasuu tagay dagaal buu bilaabay Maxamuud Sheekh Xasan intii ka dambeysay kala tashkiilin iyo kala reebid iyo ka soo baxa ciidanka iyo sabotaajkaasuu nagu bilaabay annagu waa iska wadanay maamulkayagii baan iska wadanay waa waqtigii noogu dhibka badnaa oo aanu galnay dagaalada oo dhibaatada badanna gaartay oo aan u soconnay bay aan madaxweyne tagnay oo ka dagaal galnay oo ceelbuur ka dagaal galnay oo intaan oo dhan shabaab iyo balaayadii joogtay aanu kula dagaalamaynay bay ahayd intaasna xaqiiqada markii ay runtu joogto Maxamuud Sheekh Xasan wuxuu ka dagaalamayay asaguna barbarkiisa oo ahayd inuu ka hor yimaado sidoo u burburin lahaa ahlu sunna wal jamaa iyo mabaadi'deeda ayadoo sidaas aan ku kala maqanahay oo aan joogno markii dambe oo waqti dhaxal la joogo 2011 ayaan u yeernay isagoo Sacuudiga joogo inta Sacuudiga joogay maamulka inuu ka mid noqdo lana shaqeeyo ayaan ka dalbanay waxaan u magacaabanay inuu ahaado gudoomiyaha golaha gudoomiyaha saddexda gole wuxuu ahaa jagadaas hayay muddo bil waa uu tagay markiiba ninka la yiraahdo Sheekh Shariif buu u tagay wuxuu kula heshiiyay culaabta ahlu sunna wal jamaa xaqiisa ka haysata inuu asagu kaga qaabilahayo baawir sheerina uu ka siiyo dawladda waxaa loo ogolaaday Macallin Maxamuud in la siiyay laba wiil oo Cabdicasiis Sheekh Yuusuf iyo Cabdisamad Macallin Maxamuud in laga dhigay laba wasiir halkaas ay ka galeen markaasna uu iclaanshay ahlu sunna inay dawladdii ku biirtay oo ay dawladda ka qayb ka tahay asaguna uu tagay Sacuudiga uu aaday dib damba uu sanoogu soo laaban inta wuxuu hayay dagaal ahlu sunnadii dagaalamaysay oo meesha joogtay iyo mabaadi'deedii inuu la dagaalamo asaga iyo wiilashii uu dawladda ku darsadayba iyo Shariif oo barbar la ahaa haatan waa uu joogaayo hadalkayga mindhaa waa uu dhageysanayaa mindhaa war buu ka sheegi doonaa haddaan wax intaa ka bedelan aan sheegay labada wiil baa la siiyay gurina waxa laga siiyay uu dago madaxtooyada xogaa lacagana waa la siiyay
intaasay ugu dhammaatay annaga mumathalkayagii waa ka haysanaa dawladdu yidhi halkaasuu ku biiray intayadii hawsha waday oo ahlu sunna wal jamaaca ahaydna dagaal ayuu nagala hor yimi sidaas iyadoo aan ku jirno annaguna aan hawshayadii iska wadanno markii la soo gaaray ninka la yiraahdo xasan sheekh la doortay aniga iyo sheekh maxamed yuusuf xeefow baa waxaan tagnay caleemasaarkiisii inaan ka qayb galno xasan sheekh waqtigaas aan tagnay annagu ayaa macallin maxamuud wuxuu ka soo kacay sacuudiga waa uu yimid markii uu yimid wuxuu yidhi dawladdii waa ay dhacday hore dawladda tan cusub baana timid ayadii baa loo baahan yahay inaan wax la qaybsanno maxaa tala ah dee waataad naga tagtay intaad mas-uulaad kuu dhiibannay baa tagtay adaa iskaa isku fasaxay ismabana aanaan arag hadda wixii aad wax la qaybsanaysay cid aad wax la qaybsanayta aday kuu taal baan ku nidhi halkaasaan uga tagnay huteel Wardheere waa kii shirka ku qabtay waa kii iclaanshay inuu guddoomiye u yahay ahlu sunnada gobolka Banaadir koonfurta Soomaaliya inuu u yahay waa kii ka iclaanshay miidiyaasho dhan bay ku jirtaa mindhaa waa la wada dhageystay oo dadka intii dhageysatay waa ogtahay intii kalena hadda YouTube-yada iyo baraha bulshada ay ka buuxdaa waa arki doontaan ayadoo sidaas ay tahay oo ku kala joogno annaguna hawshayadii wadanno waxaa yimid in ilaahay oofsaday sheekh maxamed yuusuf xeefow tii ilaahay baa u timid markii uu dhintay sheekh maxamed yuusuf xeefow wuu soo raacay jinaasadiisii sheekh maxamed yuusuf xeefow wuxuu ku dhintay magaalada muqdisho ayraboorka iyadoo la geeyey baa naf baxay dadkii soo qaaday jinaasadiisa buu soo raacay maxamuud sheekh xasan gobolkaanuu noogu yimid markii uu noogu yimid oo annagu maamulkii aan samaynay oo aan wadno oo aan beersigii buuxinay oo guddoomiye doorannay maxamuud sheekh xasan wuxuu sameeyey inuu sameeyey urur uu ula baxay sufo oo ciidan ah oo maarikhiin ah oo ka leexday mabaadi'dii iyo qawaaciddii iyo ahlu sunno iyo magaceedii iyo nahjigeedii markaas waxaa yimid 2014 ninka la yiraahdo maxamed cali taabile oo hadda dadku shaakir ay yiraahdaan oo ka yimid waxbarasho u jiray Yaman u jiray waqtigaas ayuu yimid ciidankaas ay samaysteen sufay ula baxeen waxay ku aruursadeen meesha la yiraahdo Ballahawd markay ku aruursadeen ciidamadii rag ay ka aruursadeen oo sufa ula baxeen iyo wiilal dhuxuleeya oo meesha joogay oo dhuxul shiidan jiray oo dhuxusha ay ka dhicin jirnay arnaku markaas oo ahlu sunna ka dhicin jirtay maamulkii ahaayo joogay iyo wiilal la oran jiray albahar oo dushaas ka qaraaban jiray oo xoolaha dhici jiray oo dusha geelasha baadida ah oo dusha u dhaxaysa Dhuusamareeb iyo Xaraale iyo Balambal iyo Gurceel u dhaxaysa xoolaha baadida oo soo gala intay dhacaan safarsan jiro ama Boosaaso u dhigi jiray ama Beledweyne nimankaas uu helay halkaas lagu tashkiiliyay jihaad baa loo tafawuday halkaas lagu diyaarshay waqtigaas halkaas iyagu ay ku diyaarinayaan annaga ahlu sunno waxaan u aragnay maadaama cadawgii meeshii ka fogaaday dadkiina ay u baahan yihiin adeeg iyo ummad ahaan maamul baa ka jiray ximan iyo xeeb oo madax ka yahay ina baarleex meesha la yiraahdo galmudugna gaalkacyana waxa ka jiray maamul oo galmudug ah oo cabdi qaydid uu madax ka yahay annaguna Dhuusamareeb iyo Gurceel iyo Xaraale iyaan joognay waxaan u aragnay oo ahlu sunna u aragtay maamulkoodii in aysan suurtagal ahayn dadka iyo dalka iyo diintana aysan u adeegayn saddex maamul oo isku meel ah sidaa darteed waxaan xiriir la yeelanay maamuladii kale waxaan isku afgaranay inaan midayno oo dalka maamuladaanu anfici mahayaan hal maamul oo mida aanu u samayno sidaa darteed waa tagnay
aniga iyo cabdi qaybiid iyo ina baarleex waxaan tagnay muqdisho heshiiskaas waxaan ku soo saxiixnay madaxtooyada Soomaaliya sidaas baa galmudug dawladda la yiraahdo aaskeedii lagu bilaabay markaan anagu saddexdii qolo isku darnay saddexdii maamul aan isla ogolaanay cadaada la tagay xilligaas halkaas anagu aan marayno ayaga oo ahlu sunna la diriirahaya oo ah sufo waxay weerar ku qaadeen magaalada la yiraahdo Guriceel ilaa 60 qof bay ku dileen masaradu Samareeb bay ku xijiyeen dad badan bay ku laayeen oo ahlu sunna ah oo waliba kulligood dadkii hormoodka u ahaa dagaalkii lala galay shabaab nimankii hormoodka u ahaa bay ku laayeen waa ka sii gudbeen ayagoo halkaa joogta shir bay qabsadeen Samareeb bay ku qabsadeen waxay ku dhawaaqeen Maxamed Cali Taabile waxa inay u doorteen madaxweynaha maamulka Central State ayaga oo ka cararahaya magaca ahlu sunna wal jamaa kula dirirahaya inay la dagaalamaan oo baabashaana raba madaxweynaha Central State qof la weydiinayo qof hadda ay weydiinaya midna ma jiro shacaar bay ka dhigteen calan bay ku qorteen waxay u samaysteen istaambooyinkoodii iyo tibarahooday u samaysteen sidaas ay ku hawlgaleen weerar bay bilaabeen geelay weerareen oo dad ku xasuuqeen caabud waaq bay weerareen oo ku xasuuqeen ahlu sunna waxay weerareen godin labe oo ku xasuuqeen ayaga oo raba in ay Central State soo saaraan ahlu sunnana baabashaan ujeedadoodu tahay aakhirkii xaraale oo ahaa shicaarka ama xarunta ugu weyn oo xaraale ay saldhigga u ahayd ayay weerarkii ugu dambeeyay ku qaadeen 3 bilood ayay garaacayeen ayaga oo adeegsanaya magaca Central State 3 bilood bay garaacayeen markii ay ku guul daraysteen ilaahay fadligiis oo ay waxba qaban waayeen oo ay ku guul daraysteen xalaale inay wax ka qabsadaan oo ay caabud waa qabsan waayeen oo ay bangeela qabsan waayeen oo ay godin laba qabsan waayeen oo Samareeb isugu laabteen xaaf bay wada hadal la galeen Nairobi bay kula hadleen ayagoo Central State ah waxay kula hadleen Djibouti ayagoo Central State ah xaaf bay is afgarteen waxay u wareegeen galmudugta cusub madaxa xukuumadda galmudugta cusub ayuu uga wareegay madaxweynihii Central wuxuu uga wareegay madaxa xukuumadda galmudugta cusub magacaas ayay ku joogeen sidaas ay ahayd markii dambe oo xataa Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii iyo galmudugtan dambe la dhisahayay wada hadalka iyo qaybta ay ku jireen waxay ahayd ayagoo madaxa xukuumadda asaga oo ah oo sheeganaya oo galmudugta cusub ah ahlu sunnana wax shaqaa oo uu ku leeyahay aan la aragoy bay inkireen bay ahayd halkaas baa lagu kala tagay intaas ay ku dhamaatay waa tii lagu dagaalamay hadda waxay noqotay in markii dambe siyaaradii dhaweed oo Sheekh Yuusuf markii la isugu yimid ahlu sunna wal jamaa laga soo birilaqaystay oo laga soo binguurshay oo muxaadarooyin inta laga sameeyay duulaan laga soo qaaday iyo abaabul oo ahlu sunna wal jamaa la sheegtay oo ahlu sunna wal jamaa nahay la yiri oo ay la kaceen baraha bulshadu oo qof walba oo war sheega la kacay oo caadifad loo kacay halkaas arintu ka bilaabatay waxaan sheegayaa oo cadeynaya oo caalamka u cadeynaya anigoon taariikhdii soo wada sheegi karin 13 sano soo dhacday iyo waxyaalihii jiray aan wax yar ka soo qaatay nimankaas ficilka ay sameynayaan iyo hawsha ay wadaan iyo waxa ay qabanayaan ahlu sunna wal jamaa cidlay ah oo ay ku matalaan ma jirto mabaadi'da iyo qawaacida iyo shacaairta ahlu sunna wal jamaa ma ahan ma matalaan daraf kama ahan waa niman maarixiin ah oo ahlu sunna wal jamaa maarixiin ka ah oo qaranka iyo dawladnimada Soomaaliyeed maarixiin ka ah oo diilayaal ah
oo xukun doon ah oo power sharing raadinaya oo aan diin iyo acraaf iyo islaam iyo axkaam midna waxay taliya gelinayaan aan la arag oo ka mid ah hogaamiye kooxeedyadii Soomaaliya ka kacay oo ujeedadoodu ay ahayd in dadka iyo dalka nin walba waxa uu doonayo uu gacantiisa ku samaysto oo uu dadka ku laayo sidaa darteed waxaan cadaynayaa nimankaas cid ay ku matalaan iyo ahlu sunna ay ku matalaan iyo mabaadi ahlu sunno oo ay ka tirsan yihiin oo ay daraf ka yihiin midna inaysan jirin cid kasta oo ahlu sunno la jecla ay ku hayso ama ay sharaf iyo karaamo leedahay ama dhibaatadeeda ka danqan haya iyo sumcad la'aanteedu inay nimanka ka bari noqdaan inay ka barbar ka istaagaan in ay nooleeyaan mabaadi'da iyo shacaa'irta iyo qawaacidda ahlu sunna wal islaam oo wal jamaaca oo ku salaysan ilaalinta asluubta iyo qawaacidda iyo ahkaamta iyo arkaanta shariicada islaamka in la ilaaliyo shariicada islaamka qawaacideedu ma ahan dadka in la laayo ma ahan diid in la qubo ma ahan maariikhiin in la noqdo ma ahan ijmaaca in laga baxa ma ahan ummadda in laga baxa ma ahan kaligiis qofku go'aan intuu gaaro wuxuu rabaan samaysanaya naftaydan diin u adeegsanaya ma ahan waxa waajib ku ah qof kasta oo danaynaya ahlu sunno nimankaas inuu ka bari noqdo oo uu ku biiro qawaacidda iyo asluubka iyo mabaadi'da iyo difaaca shariicada islaamka iyo daa'irada ahkaamta shariicada islaamka oo ahlu sunna wal jamaaca waligeed iyo allaha shicaarna u ahayd haatanna ay haystaan intii aan wax ogeyn oo hadda caadifadu ay wadana arinta ha ka fiirsadeen baan leeyahay mamnugu matalaan ahlu sunna kuma matalaan bari bay ka yihiin ahlu sunno annaga mas'uuliyiinteedii ah mabaadi'dayadu waa caddahay qoraal bay u caddahay shariicada islaamka in ay ku socdaan oo ay ku shaqeeyaan oo aysan wax ka badan ama ka baxaya ama naqiil shariicada islaamka ku ah in ay bari ka yihiin ahlu sunna bay ahayd in aysan maariikhiin noqon bay ahayd in aysan ijmaaca ka bixin bay ahayd wax alla waxaas oo dhan bay banaanka ka yihiin shariica islaam xiriir lama ay leh dadka iyo acraafta iyo aqliga midna wax keeni karta ma ahan xabad baan la ordahayaa kursi baan doonahayaa islaam u habeyeeli mahayo magacii ahlu sunna wal jamaaca sheeganaya wax la aqbali karo iyo wax la qaadan kara ma ahan sidaa darteed dadka arintaas caadifada u haya oo ka daba hordahaya arintaas ka baxeen nimankan ahlu sunna ma ahan waa central state marna waxay ahaayeen sufo marna waxay ahaayeen galmudugta cusub wax shaqaa oo ay ku leeyihiin iyo wax xiriir oo kala dhaxeeya iyo wax magac ahlu sunna oo ay leeyihiin midna ma leh calaamadoodna ma leh ilaahay baan barqaati uga dhigaynaa inaan bari ka nahay oo aanan ahlu sunna la ahayn oo aanan hadafkooda la ahayn oo aanan kula shaqaynay oo aysan shicaarkayaga ku shaqaynay oo aysan shicaarka ahlu sunna ku shaqaynayn intaas ayaan ku soo gabagalaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh